maayirka magaalada Berbera oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgallo ay maalmihii u dambeeyay ay ka wadeen gudaha magaalada Berbera kaasi oo ku burburinayeen sandaqadaha laamiga u dhow ee bilicda magaalada waxyeelaya. waxaanu maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin sheegay in dadka danyarta ee ku ganacsanaya goobahaasi ay taakulo u sameyn doonaan. maayirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi maamulka degmadu oo anigu aan fulinta ku hogaamin waxaanu qaadanay istiraatiijiyad oranaysa magaaladeena inay horta magaalooyin kale ka duwanaato haday tahay nolol iyo haday ay tahay qurux iyo haday tahay waxaan habeen maalin ka shaqeynaa qofka reer Berbera ah adeegyadiisa asaasiga ah ka shaqeynaa noloshiisa inuu ubadkiisu caafimaad helo inuu ubadkiisu waxbarasho helo inuu ubadkiisu shaqo abuur helo inuu ubadkiisu cilmi iyo aqoon helo waxa iska hor imanaya quruxdii magaalada iyo duruuftii danyarta qayb kamid ah marka dadka danyarta ah ee ku shaqaysanaya degmada Berbera gudaheeda horta ma wixii iyagu ay deelqaaf iyo xadaaf ay la yimaadeen mise dhibaato kale oo aanu haynay iyo culays aan ku hayno waxay deelqaafkii sameeyeen baan leenahay si magaalada ugu qurux banaato adiguna meheradaada kugu wanaagsanaato gurigan dhisan ee kharaabada isu bedelay ee wajahadiisa sandaqada ka dhistay sandaqada ka qaad baan leenahay muwaadinku waxa uu kiraysan gurigan u dhabarka ku hayo guriyahan inaga kharaabay gurigu wuxuu inaga doonayaa istambar wuxuu inaga doonayaa rinji wuxuu inaga doonayaa geed hortiisa lagu beero bilic buu inaga doonayaa iyo businesskaaga shaqada isku waafaqdaa Berbera maanta lama digin waligeed baa lagu noolaa waligeed saasa guriga lagu noolaa qodob labaad baa soo raacaya qodobka koowaad waa dadka guriyaha iyo dhismayaasha dhabarka ku haya ee aamin waayay guriga gudihiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka meesha doon ku risqa hadduu banaanka u baxay hadduu halkan laamiga soo ursadaba risqiisu meeshii u yaalon buu yaalaa halka waxaan leenahay waa laba qaybood qayb guriga u kiraysan qaybna guriyaha ma kiraysna qaybta guriga u kiraysan waxaan leenahay gurigaaga ku kiraysan imaaso dib u gal waxaan ku ogolnahay structure-ka dawladda hoose waxay ogashahay 2 mitir oo qorshaha magaalada waafaqsan oo dawladda hoose ku dhigto oo barandaa oo furan oo shuruudo leh wixii ka hor yimaada mar walba la duminaya qoliyaha kale ee gacanta ku dhacday inuu ku celinayna ka deynayna oo sii wadayna sababtan ku wadayna waxa weeye caafimaad darro ayaad ku haysaa bulshada waxaad fadhiisataa bannaan waxaad ku haysataa meherad god ma laha oo bilaacad ma laha oo suuli ma laha oo biyahan halkan ka daayso hortayda ku shubaysa oo ummadda waxyeelanaysa waxaan la dagaalanaa duqsiga waxaanu kala dagaalanaa kaneecada waxaanu kala dagaalanaa wax kastoo sida cudur ku keenaya bulshada danyarta ku waxyeelowda ee camal aan kaga timaado waan naqaana dadkayga inaanu la taakulayno oo la taabino oo wixii aan la qaban kareynaba aanu garab ku siino ama aan la baydhino meheradiisii suunooshiisa u sii wato meel geyno meesha ku haboon la geyno oo gacan siino iyo in shaqo kale oo la baadi doono oo tanu maanta uu ka gudbi waayay inuu noloshiisa kale u bedelaba waxaan adduuminayna waan naqaanaa su'aashaada waan kaga jawaabayaa horta marka hore dawladda hoose waa structure nidaam dawladeed oo dhisan qofka muwaadinka madaxa qarshi jac kama siino horta anagu waxaanu siinaa warbaahinta aanu kala hadalnaa waxaanu siinaa waqti ku filan waxaan mikrofoonka la dul maraa marka intaas oo dhamaato waa la calaamadiyaa intaas oo markuu diido horta waa mardiinta taas waa koow talabaad igu celinayso anaga 200 guri 300 guri dadkaagu ma ogol yahay inuu banaanka u baxo halka uu tago ma ogola laamiga taayirkiisu ogol yahay oo yaqaan risqigu yaalo qaar kamid ah dadka laga dumiyay guryaha si sandaqadaha ah oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warameen sida ay u arkaan in laga dumiyo guryaha sandaqadaha ay ku jireen waxaan ku andacoonayaa naafada waddanka iyo dadka kale tuminba inaas kasi loo eegin ilaa soo eego dadka silasan wax ka codsanaya maayarka wax ka codsanaya inuu meeshayda anigu maayarka dhulban weydiisay waan bariyay wii balan qaaday haddana jaaris buu waayay kuma eedaysna waxa ka codsanaya maayarku inuu meeshayda bariiska ka dayayo
wixii sharciga dhaafsiisan anigu ku dhaqmi maayo wax sharciga dhaafsiisan laakiin wixii sharciga hataa la soo eego ma yaalo wadada Masar Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada Berbera.